وصباحنا خميسة لحية طبعا كي بشي لبعض لبعض كل صدحي لبعضك ومالكي طبناد وقالوا دقالكي كسعودي مقالة لاسعانود يود حيي جماهير تحقق دير الكا اس سي يهو يدا للدقاء إدش الشباب اس ان ام وحن برنامج كساكا يدين كوغو هينا جماهير تحقق دير الكا اس سي امسجهو ايو دقالكو كسعودا برنامج كاياتكو مغلي دونتان وحن كلو برنامج كو يفتيمين دونا اسلا مركانا توشك لا دول استاغي دونا in badan waxaad maqasheen anoo leh hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab waa kuma adaba aabaha dhalay shabaab barnaamijka ayaad ku maqli doontaan magacaygu waa Hilaacsool channelkuna waa isla Hilaacsool waxaan idiin soo gudbiyaa warar sugan isla markaana xaqiiqda ku qotoma waxaan baaraa siraha qarsoon si aad noola socoto fadlan channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka u furo maalinkii tobnaad ayuu galay dagaalka u dhaxeeya jamaahiirta xaq u dirirka ah ee SSC iyo hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab haddaba waxa isweydiin mudan imisa jiho ayuu jamaahiirtu dagaalka kaga socdaa afar jiho ayuu dagaalku kaga socdaa jamaahiirta balse waxaan soo qaadanaynaa oo aan adda xogtooda si wacan u baarnay soona hubinay saddex jiho jihada afraad dib ayaan u dhiganaynaa saddexda jiho waxay tahay jihada koowaad barasaabka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sababtaan u leeyahay barasaabka Soomaaliya ana isla barnaamij gudihiisa ayaad ku maqli doontaan jihada labaad oo ah gacan ku dhiigle Muuse Biixi jihada saddexaad oo ah Faranfar Ismaaciil Cumar Gelle saddexda jihaba jamaahiirta SSC waa uu kaga socdaa dagaalka haddaba aanu mid u kala qaadno mid u kala qaadno jihada koowaad waxaan ku tilmaamnay barasaabka federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sababtaan u leeyahay barasaabkana waxa ay tahay dhawaan waad wada ogtihiin oo waxa dhacay kulan igad ay ku qabsatay magaalada Muqdisho oo laga hadlayay arinka ka taagan magaalada Laascaanood Faranfar Ismaaciil Cumar Gelle ayaa wuxuu ka codsaday igad in uu dhexdhexaadiyo Hargeysa iyo Laascaanood halkaana waxa ka muuqata shuruucii igad u deganeed in horta u gafay waa marka hore waayo igad waxa ay dhexdhexaadisaa waa dawladda ishaya ee magaalooyin ishaya maaha waxa ishayana Cali Sabiix iyo Carta maaha ama Carta iyo Jabuuti maaha ee waa Hargeysa iyo Laascaanood waa ay ka diideen markii ay ka diideen intuu kacay Ismaaciil Cumar Gelle ayuu wuxuu yiri aniga ayaa dhexdhexaadinaya ciidanna u diraya halkii looga baahnaa Xasan Sheekh Maxamuud intuu kaco inuu yiraahdo dalka ana madaxweyne ka ah waa halka aan ka leeyahay barasaabka federaalka Soomaaliya jihada koowaad oo horta ay kaga socoto bahasha waa federaalka Soomaaliya waana barasaab Xasan Sheekh Maxamuud waan ogsoonnahay Xasan Sheekh Maxamuud hal mar ayuu hadlay oo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ka hadlay mar labaad kama uusan hadlin isaga iyo dawladdiisaba mar labaad kama aysan hadlin hadda waxaan la soconnaa dhaawicii laga qaaday magaalada Laascaanood ee la geeyay Muqdisho in lagu yiri jeebabkiina iska fangareeya maadaama aanu diyaarad idinka soo qaadnay aanu Muqdisho idin keenay horta dagaalka koowaad ee xoogan waxa uu kaga socdaa waa jihada koowaad ee dawladda federaalka Soomaaliya waana xaqiiq la hubo oo aan baaritaan ku sameyn jihada labaad waxa uu kaga socdaa gacan ku dhiigle Muuse Biixi waayo saan wada ogsoonnahay jabhadan ama hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab muddo 32 sano ah ayaa waxay dhoobaysay wax la yiraahdo i'tiraaf iyo been ay caalamka kaga gadaysay gobolada Sool iyo Sanaag gacantaanu ku haynaa anagayna naga mid yihiin oo in badan oo caalamka kamid ah ay rabeen inay arrinka ka dhaadhiciyaan horta taasi waa ay fashilantay waa ta koowaad
hooyada dhadiga ee dhashay shabaabna maanta jamaahiirta xaq u dirirka SSC ayaa la weydiinayaa meesha ay ku dambayso meesha ay ku dambayso ujeedka maanta muuse uu laascaanood ka leeyahayna waa kaliya in ay caalamka indhaha ka dhaadhiciyaan magaalada laascaanood waxaa ku nool argagixiso laakiinse argagixisada kuma noola magaalada laascaanood hooyadii dhashay waa idinka hooyadii dhashay waa idinka waayo taatikada ay u dagaalamayaan waa taatikada shabaab ay u dagaalanto saddex qaab ayay u dagaalamayaan bal halka ay la eega saddex qaab ayay u dagaalamayaan hooyadan dhadiga ee dhashay shabaab qaybta koowaad waa ku dhufo ka dhaqaaq in madfac intii la soo rido dib loo cararo qaybta labaad oo ah xabada meel ay ku socdaan iyo meel ay ku jahaysan yihiin aan jirin oo la iska soo furayo qaybta saddexaad oo ah in social media waxyaabo aan jirin iyo been abuur ah lagu baahiyo waana saddexda shay ee shabaab ku dagaalamaan waa saddexda shay ay shabaab ku dagaalamaan halka ma lis oran karaa iyaga iyo shabaab waa isku tababar maskaxdu inay shaqeysaa muhiim ah qodobkayga saddexaad oo laba qodob iskugu jira aan galo waa Faranfar Ismaaciil Cumar Geelle oo faragelin adag ku haya ama dibka haya Soomaaliya oo aan ogoleen inay marnaba kor u kacdo waxa uuna bilaabay sheekadan shirkii carta 2000 waana ninka keenay nashqadan maanta Soomaaliya meel ay ka marto ay laadaay ah 4.5ka ujeedku uu keenay waxa ahayd inuu dawladda federaalka uu ku yeesho xildhibaano wax walba la wadaaga waan ogsooneen farmaajo hortii xilka waxa hayay xasan sheekh maxamuud علاقات وعنا يا كدحي بل سمركي وفرماجة قبصدي وح علاقات او كدحي هبا يراتي ما جرتو فرنفر اسماعيل عمر جيله iyo farmaajo taasna waxa keentay fahan uu farmaajo fahansan yahay ujeedka uu Soomaaliya ka damacsan yahay waad ogeydeen ciidamo fara badan oo Afrika kala socda ayaa koonfurta Soomaaliya ku sugan ولما مقشان ciidanka Ethiopia ciidanka Djibouti waxa weerar ku soo qaaday shabaab maya wali cid maqashameedi ku jirtaa waa maya fariisimaha ciidanka Djibouti intay dhaafaan bay waxay u talaabayeen ciidamada Kenya ee halka ku weerarayeen shabaab sababta ay u weerari waayeen hal mar ciidanka Djibouti ama ay u dhinac marayaan ma isweydiiseen waa maya ma isweydiiseen oo kale diyaaradda Ismaaciil Cumar Geelle baladweyn soo fariisan jirtay waxa ay soo qaadi jirtay waa maya laakiin farmaajo intaba waa uu ku fahmay waana markuu calaaqaadka u jaray diyaaraddaasina wax kale ma aysan soo qaadi jirin walxaha qaraxa laga sameeyay budooyinka ah iyo hub iyo rasaas ay shabaab soo qaadi jirtay aabaha dhalay shabaabna waa Faranfar Ismaaciil Cumar Geelle waana idin cadeynaya horta Ismaaciil Cumar Geelle iyo magaalada Laascaanood aqoon isku ma laha Ismaaciil Cumar Geelle iyo magaalada Laascaanood waxa aqoon horta ay isku leeyihiin haba yaraatay horta ma jirto laakiin waxa aqoon isku leh oo saaxiiba gacan ku dheegle Muuse Biixi iyo Faranfar Ismaaciil Cumar Geelle waana labada maanta koonfurta Soomaaliya ay ka dagilaadahay haddaba maxay tahay ujeedada ay u rabaan
inay ku tilmaamaan magaalada Laascaanood inay tahay magaalo argagixiso waa hal ujeedo oo kaliya in lagu shaambadeeyo magaalada Laascaanood inay tahay magaalo argagixiso taasoo ay ka dambayso una fududeynaysa Somaliland in loo qabto gobolada SSC laakiin se waa la cunay waayo dadku ma indha laa qalbigana indha ayay ku leeyihiin oo ay ka fakaraan indhahana waxba ay ka arkaan Ismaaciil Cumar Geele waa ninka u sameyn jiray baasaboorada shabaab kuwooda u sareeya ee xaasaskoodu u deganaan jireen Burcay iyo Hargeysa baasaboorada ay ku soo dhoofi jireen waxay ahaayeen baasaboor Jabuuti ninkaan ogeyn hadda ogow ninkaan ogeyn hadda ogow hub walba ay maanta shabaab isticmaalaysa haday qarax ahaan lahayd haday qoryaha caadiga ahaan lahayd hub walba ay nooc ay isticmaalayaan ama ahaato budooyinkan qaraxyada laga sameeyay intaba waxa wadanka soo galiya waa Ismaaciil Cumar Geele maanta hubiyaasha lagu duqeynaya magaalada Laascaanood waa hubkii Ismaaciil Cumar Geele uu keenay waana nashqada ay shabaab u dagaalanto حتى واحد جرا وأنا ربعنا يدين لو ذاقو برنامج هذا يدنبنا عن خصو قاطه هرق الله عصب أو كسو جيدا باشر البحانته أو كدي لاعي فضرالك حل بعنا أسنا قردو واشا عندنا دويل الله وود لا يدمو وروح يدين لي هاي وهي الله عصول فالله هذا channel سبسكرايب كل يولد سبسكرايب كسارو سلام مركانا كمبالي الكوفرو سيادو للصعوتو حق والبه أو عصب إسلام مركانا حقيقة كسليسان إندها شعب كصوماليين كقرصونا سدائيا نبت كليو